السلام عليكم أصحاب الدمانتي وايد والله سلامي فضلا kusoo channelkeena mar kale haddii aadan subscribe karaynin channelka ha iloobin inaad subscribe karaysid dabcan waad ku cusub tahay haddii aad ku cusub tahay laakiin ha iloobin inaad subscribe karaysid taas waa codsiya channelkan waxa baad ka heli kartaa video badan baar waxyaalo badan baad ka heli kartaa so videoga maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa imtixaankii ardayda ay sugeen inaan qaadano so alright imtixaankii ardaydu ay sugeen inaan qaadano maxaan ku dambaysiinay waa kan announcementiga samaynay imtixaanka iyo waxaan u baahanahay dhammaan so hadda insha Allah waxaan idin sheegayaa date-ka aynu qaadanayno imtixaanka iyo step by step waxaan u baahanahay inaan wada haysano si imtixaankaas aynu dhibco fiican u keeno ugana gudubno maxaan dhahay una buuxino waqtigii loo baahnaa because deadline waxa la dhahayaa jira intaas ka horna inaynu registrationka dhamaysano so number 2 waxaan u baahanahay in aan haysano buugaagtan soo sawiro ayaan ka qaaday waxa weeyaan tusaale ahaan buugga koowaad haysanayna waxa weeyaan haddii aad heli karto college official set guide kan aad heli karto waa wanaagsan yahay because halkan 8 imtixaan baa ku jira oo 8 imtixaan yani hadda buuggaas wuxuu ka kooban yahay side tusaalahanada wuxuu ka kooban yahay bartanka isagoo buug aad u weyna qaybta dhinaca midig ka xigta buugga wuxuu noqonayaa 8 imtixaan qaybta bidixda ka xigtana wuxuu noqonayaa dhammaan imtixaano si maxaan dhahay temporary ah oo ayaga maxaan dhahay ku tusinaya imtixaamaadka iyo qaabka u dhaxan laakiin 8 kale waa 8 real tests ah alright so real tests kaas wuxuu ka kooban yahay maxaan dhahay English reading writing and language math qaybtii maxaan dhahay no calculator iyo qaybtii kale calculator so adi maxaad u baahan tahay in aad buuggan haysato aad bay muhiim u tahay laakiin fiir qasama haddii buuggan aad weydo qasama kala buuggan wuxuu ka caawinayaa kala xawaan in aan markii aynu waxaynu akhrinayno aynu dhamaystirno inaynu markaa tijaabino inaynu imtixaankii guud maxaan dhahay wax kamid ka jawaabi karno iyo imtixaanku soo eegaya bas hada waxa ku jira maxaan dhahay dhammaan answerskii tusaale ahaan 2000 waxaan ka wadaa imtixaanka tusaale ahaan test 1 oo kale reading writing iyo wuxuu ka kooban yahay mathkii labada section calculatorkii no calculatorkii and then waxa markaas kula socota answerskoodii dhammaan iyo why iyo wax walba yani oo markaas jawaabtii aad ku qanacaysa haddii su'aasha aad garan weydo that's the only way yani important u buugan dhanbax u hayo laakiin haddii aad intaas xamili kari weydo waxba fadlan ha isku daalinin lacagtiisu qiimihiisa waxaan u malaynayaa inuusan $100 gaaraynin almost $30 $20 waaye laakiin marna kor uma dhaafi karo yani I don't know waxaan u malaynayaa inuu haddii aad college board ka buuxiso markii aad website imtixaanka ka buuxiso inay buugganna ay ku jirtay inaad imtixaanka ka helayso laakiin tusaalahan ardayga jooga maxaan dhahaa meel gobol ka mid ah wadamadii Soomaaliya iyo dhulkeeni haddii uu damco inuu buuxiyo u malaynayaa inay Amazon bartan ooga soo dirayaan so waxa weeyaan buuggaas haddii aad meesha xarunta aad joogto aad ka heli karto library-yadooda wanaagsan haddii aad weydana ha isku daalinin muhiim saas uma ahan buugga labaad isagana aan rabnay inaan haysano waxa weeyaan test sad math weeyaan kan weeyaan sad math so sababta aan u doortay khaasatan maxaan dhahay company-gan buuggan magacan maxaan dhahay ama qofkan soo saaray magaciisa Nelson la dhaho ama college banda company-ga la magac baxay buuggan soo saaray sababta aan buuggan u dooranay waxa weeyaan banda buugyadiisa aad baan u jeclaaday really haddii aad aragtaan waad ku qanci kartaan yani si wuxuu u yaalaa sorted by name haddana wuxuu u kala yaalaa maxaan dhahay qaababka ay u kala jilicsan yihiin though waxa weeyaan iyadoo kala dhigdhigan tahay tusaale ahaan waxa laga yaabaa inuu meeshan ku soo dhigo percentage-ki haddana ku dhaho unit 2 wuxuu noqon karaa wax percentage qayb kamid ah dad xasuusato oo la dhihi jiray linear growth iyo exponential growth oo maxaan dhahay percentage-ka ku soo hoos wareega almost base-kooda oo iska ah haddii percentage-ka si fiican u taqaan aad ka shaqeyn karto so kuwaas ayaad ka heli kartaa marka anyway buuggan aad buu muhiim u yahay waa qaybta mathka because waxay ka kooban yahay buuggu isaadku maths iyo English so qaybta mathska buuggan ayaan recommend karayn lahaa haddii aad buuggan helayso aad buu muhiim yahay haddii kale oo buugaag kale oo ka wanaagsan math helayso anyway kan ayaan isticmaalaya insha Allah idinkana kaad isticmaashaanba guusha insha Allah waa mid insha Allah imtixaankana
waxa weeye waa laga wada gudbi karaa. Buugga labaad aynu u baahanahay waxa weeyaan writing. So kan haddii aad haysato iyo haddaadan haysanin muhiim maaha yani because inta badan maba la helaba kan. Haddii marka aad heshid adiga aad buu muhiim u yahay. PDF kiisa ma garanayo laakiin hadda tusaale ahaan PDF ka kan waan idin siin karaa linkiga, waan raadini karaa linkigiisa waan idin siin karaa. laakiin kan hadda tusaale ahaan meel kuma garanayo, linkigiisana idinma siin karo. laakiin haddii aad helayso aad buu muhiim yahay. wasad writing isaga aad buu muhiim yahay khaasatan qofkii heli kara buukan. yani waxa weeyaan writing-kiga kalaata writing and language grammar iyo waxaas buu base u yahay. so haddii dee aad qof grammarka ku fiican ahayd waxa meesha la isweydiinayo waa sama wax grammar laakiin waxa ku muhiimsan waxaa inaad waqtiga save gareyn karto because waqti baa kugu socda. so writing-kiga haddii aad heli karto buug wanaagsan, aniga buugan ma arag laakiin waa buugaagta ugu wanaagsan ee la heli haddii aad haysatay aad u wanaagsan tahay. kuwo kale ka wanaagsan baa jira. second edition iyo first edition buu kala lahaa. first edition qofkii haya first edition-ka waa la heli karaa writing-giisa laakiin second edition ani ma arag. so I hope inuu maxaan dhahay aad heshay buugan insha Allah. haddaba ardayda qaadanaysa ESA-ga because saadka waa saddex nooc. waa mid maxaan dhahay kalaata math iyo waxaas ah, and by the way subjectsna ay la socdaan oo xataa physics iyo aad ka helayso maadooyinkii kale oo la galo. saadka kale ee caadiga normal saadka xooga badan ah waa saadka mathka iyo englishka iyo ESA-ga la socto. ka kale ESA-ga dhan ee lagu sheegay waxa weeyaan waa qoritaan, waa waraaq aad qorayso wax. marka ayada waxaa lagu siinayaa title, paragraph yar baa lagu qorayaa. paragraphkaas waxa weeyaan argument iyo waxbuu ka kooban yahay. ada waxaa la rabaa inaad qofkan say argumenteeda u garooni garanaysa aad ka hadasho waxyaalo waxa noocaas la xiriiro weeyaan warqad aad ku qorayso. that's all yani. so ESA-ga kalaata waxa weeyaan muhiimadiisu waxa weeyaan oo kalaata some colleges baa ku dhihi sad with ESA baan rabnaa laakiin not every college, laakiin every college sad bay ku weydiinayaan taa la soco. marka yani oo sad waxa weeyaan every college ku geli kartaa laakiin sometimes ESA-ga ayaa lagu dhihi karaa sad without ESA marna oo college-kaas ayaa kugu xiri kara. khaasatan dadka hadda maxaan dhahay dibadda Mareykanka oo kale ku nool jaamacadaha inta badan college-ga Mareykanka with ESA bay aad u raadiyaan because ESA haddaad qaadato bay ku qaadanayaan with ESA haddaad haysato imtixaanka. waxaynu ka hadlaynaa waa SAT not CAT ama CAT yani badan baa jira magacyo badan ba kala leeyahay. so SAT baan aniga ka hadlayaa sad. so waxa weeyaan markii aad ka timaado ESA-ga haddaba buugga aad u baahan tahay ayaan ku tusayaa. waa haddii aad go'aansatay inaad ESA-ga qaadato waa buuggan. so buuggan ESA-ga isagoo aad buu dhib yaraa waa la helayaa. waxa weeyaan waana ka ugu muhiimsan. wax badanna maba ahaba 70 page buu ka kooban yahay. horaad ka dhamayni wax waa aad buu muhiim yahay xaqiiqatan buuggan aad buu muhiim yahay haddii weliba college band aad ka akhrinayso. sababta aan u doortayna waa sababta adigu waad tijaabin kartaa. sad ESA college band waad eegi kartaa muhiimadiisa waa arki doontaa. 70 page oo kugu filan weeyaan xataa buug badan maaha insha Allah. wayska iyo waxaas iyo waxa step by step ku tusi doonaa insha Allah. waxaan rajeynayaa inaad ku qanacdo. aan ka imaado markii stepka buugyada aan ka nimaadno waxaan u soo gudbaynaa stepkii haddaba qaabkaynu u buuxin lahayn. seed ku arki kartaa haddaba marka koowaad waxaad u baahan tahay inaad fiiriso dateska. waxaad ku eegi kartaa sad 2020 ani hadda 2020 weeyaan kan dhahay waa idinla qaadan doonaa insha Allah. 2020 test dateska waa kan idin insha Allah waan idin la eegayaa. so 2020 test dateska iska fiiri. marka hadda tusaale ahaan March 14 waqtiga aan idinla hadlayo waa March, laakiin March 14 oo maantadana waxaa jira imtixaan. sababta aynu kan u saga daynay waxa weeyaan message-kan ayaa noo soo dhacay as you can see. message-kan waa coronavirus updateska. coronavirus wuxuu sameeyay xaalad in xataa imtixaanka la cancelayo ay dhawaatay. halkan waxaad arkaysaa inuu ku leeyahay during this time we are following advice from public health officials and local education leaders, the best people to decide whether or not to close your test center. so means inuu hadduu health though waxaa la ogyahay inuu jaamacadaha la xiray hadda meesha ani Turkiga oo joogo. tusaale ahaan hadda waddanka Turkiga jaamacadiisa qayb badan waa la xiray hadda ama fasaxyo ardayda loo wada kala geliyay. meelo badanna waxa weeyaan waa la baan karay wax walba waana la wada xiray. so arrinta darteed saameyn karto ayadoo coronaviruska maxaan dhahay yareyntiisa iyo waxa laga wada qayb qaadanayo unbaa sidaa loo sameeyay. marka update-kan oo soo dhacay always waynu iska dhaafnay. aan aado haddaba maxaan dhahaa
qaabka aad markaa u buuxin karto waxa weeyaan adiga oo date-ka fiirinaya iska fiiri date-ka aad buuxinayso so sad test date-ka waa maalinta aad gelaysa imtixaanka ma ahan maalinta aad buuxinayso registration date-ka aad aragto weeyaan maalinta la buuxinayo so 14 March February 14 baa la buuxinayay though means 14 February inuu yahay deadline-kii halkaas waa deadline la soco waa 14 15 macnaheedu waxa weeyaan inaad deadline ku jirto ama 14 ba inaad deadline ku jirto so hadda Saturday May 2 waa kan aan hadda rabno inaynu qaadano because waa ka kalaata in lagu soo xiga waa April 3 insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu si fiican u dhaco oo waxaan coronaviruska iyo cabsidana ay kala yaraato insha Allah 1 month baa laga sii xigaa oo April ayaa ka soo xigta so registration wuxuu dhacayaa April 3 2020 la soco fadlan scoreska waxaa la soo deeni doonaa marka aynu imtixaanka galno oo May 2 ah kabacdi oo May 15 ayaa la soo deeni waqti dheerba ma ahan waxa weeyaan waxaa noogu xiga isagana June ka xataa waa la qaadan kara laakiin muhiimadda focuska xooga keenu saarayna waa Saturday May 2 2020 insha Allah April 3 May 15 imtixaankaas weeyaan insha Allah keenu qaadanayno inuu tijaabinayno insha Allah dhamaan wixii requirements loo baahnaa waan tusay haddaba su'aasha dhahaysa fadlan sidee loo buuxin karaa waxaa loo buuxin karaa step by step iyadoo waxaad ka helaysaa fiidiyoyadeena dib ugu noqo fiidiyoyadeena waxaad arki doontaa iyadoo oo la buuxinayo saadkeena on ku dhawaaqayno qaabka u buuxiyay yooskii baynu ka hadalnay iyadoo ka buuxinaysa arkaysaa waka sad exam part 1 sad exam part 2 baa jiray marka adiga waxaa samaysaa inuu fadlan aad aayar ku noqoto bugaagtaas aad fiiriso maxaan ka wadaa fiidiyadaas kabacdina aad ku qanacdo wixii aad fahmayso waxaad fahmin wuxuu u egyahay page-ku sidan ayuu egyahay page-ku marka aad aragtay ugu horeysa page-ku sidan ayuu egyahay insha Allah waana ka site-ka aad ka buuxin doonto imtixaanka lacagta haddii aad weydiisaan waxa weeyaan lacagtu waxaan idin ogahay oo kale inaysan $100 ka badnayn laakiin inay ka yartaa aan igu dambeysay markii igu dambeysay imtixaanaadkan aan ogaa so waxaan rajaynayaa insha Allah markaan buuxinay inaad la socodsiiso soo update gareeyo markii aan registration iyo warqadda aynu admission-ka helno waxaasna inuu soo update gareyno iyadoo lacagta loobo laakiin waxaan idin ogahay oo kale inuu $100 aysan ka badnayn so waxaan idin kula talinayaa mar labaad inaad start with ESA qaadataan ardayda maxaan dhahay because ESA inta badan ardayda Soomaaliyeed college iyo waxay ku raadiyaan scholarship iyo imtixaanaadka because wadanka Soomaaliya ma maleynayno inuu saa loo record gareeyo imtixaanka so waxa weeyaan fadlan start with ESA iska qaado ESA wax adag maaha waa qoraal kale aad qoraysa wax insha Allah marka waxaan rajaynayaa videogan inuu si tamaamana aad u fahantay mar kale fadlan waxaan ku leenahay channelkeena ha iloobin inaad subscribe gareysid anaga mar walba waxaan isku daynaa inaan waxaynu soo update gareyno waqtiga uu adag yahay wax walba uu adag yahay so fadlan waa codsi kale insha Allah dhammaantiin inta video kale iska arkin waan salaam insha Allah